waxaan ahay gabar yar oo Ilaahay ugu deeqay awlaad isku nuug ah. nin i jecel aan anigana jeclahay ayaan uga soo tagay Afrika oo waxaan imid qurbaha gaar ahaan Yurub. markii aan halkaas imid waxaan gacanta u galay habarqaba i hoosaasiyay wax walba oo aan aniga rabayne ii sameeyay oo waliba wax ku sii daray. waxa uuna noo ahaa turjumaan wax walba oo aan u baahanane uuna siin jiray xitaa xilli walba oo aan u baahannahay waan heli jirnay. laakiin waxa uu watay khiyaano aakhirkiina waxa uu igu riday dab oo waan dambaaway. markii dambe oo aan soo baraarugay oo aan u sheegay in nin uu i qabay waxaana ay qalad ahaayeen wuxuu igu yidhi nin kaa maqan ee Afrika jooga waxba kuuma taraya iska fur. ninkane waxa uu ahaa nin wanaagsan. markii aan ka codsaday inuu i furo wuxuu igu yidhi aan ku furee ilmahayga ii soo dhiib anigana waan ka diiday. arrintii way weynaatay qoyskii aan ka dhashay ayaa ogaaday. ninkiina waxaa loo sheegay in beertiisa uu nin kale maamusho. ninkanna waxa uu ahaa nin qarbeele ah oo gabar walba oo qurbaha ku cusub duleeya oo meel cidla soo fadhiisiya marka uu reerkeeda ku diro. dhibaato weyn ayaa i haysata. ninkii xitaa oo aan horey u qabay caafimaadkiisa ma wanaagsano. ilmihiina way koreen waxay u baahan yihiin aabbo. aniguna waxaan u baahanahay nin. ninkii horena ma hayo kii dambena meel cidla ayuu iga dhaqaaqay. hadda waxaan la imid toobadkeen arrinteeduna way cakiran tahay. maxaad igula talinaysaa oo aan sameeyaa?